السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي كسر دواذا جنانكيغا عاشمونا رمضان كريم. أصحابي ما أنت waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago idinkana faa'iideeyo sida loo sameeyo boorsooyinka gacanta. boorsooyin aad u qurux badan insha Allah. kusoo dhawaada waan bilaabanayna insha Allah. waxaad u baahan tahay maqaska iyo bahashan dhalaalaysa. waxaad ka helaysaa insha Allah maktabadaha ee lagu iibiyaa. waad ka soo iibinaysaa xeer baa la siiyaa insha Allah. ka faa'iideysi wanaagsan. haddaad doonto waxyaabo kale aad ka samaysan kartaa adigu oo ka duwan, laakiinse waxa muhiimadda ay tahay design kasta aad u samaynayso insha Allah aynu wada eegno insha Allah. sidaad doontaad ka dhigan kartaa nashqada noocaad doontaad ka dhigi kartaa. waxaad ka samaynayso wax culus adag baad ka dhigi wax adag baad ka dhigan kartaa insha Allah. ka faa'iideysi wanaagsan. waxaad u baahan tahay xabag baaskoolada insha Allah ayaan ku sameynaynaa. intaasaan ku sameynaynaa iyo waxyaabo yar oo ku qurxinaa insha Allah. walaal channelka dadka cusub tahay subscribe dheh si aad ula socoto waxyaabaha cusub ee soo gelin doono insha Allah. dadka hashana like dheh, like saar kana faa'iideyso walaal insha Allah. wixii niyad aad u hayso aad leedahay baro aad tiraahdo waad baran kartaa si fudud waliba ayaad u baran kartaa. muhiimadda waxa weeyaan wixii inaad si fiican marka daawanayso aad u fiirsato insha Allah aad ku xilxishato insha Allah waad fahmaysaa. waxyaabo badan insha Allah oo fiican ayaan idiin soo gelin doonaa ilaahay dartii insha Allah. idinla wadaagi doonaa wixii aan aqaano idinkuna ilaahay damkiisa waa ka faa'iideysan doontaan insha Allah. haddaad ka faa'iido oo ku anfaco insha Allah la sii wadaag asxaabtaada iyaguna si ay uga faa'iideystaan insha Allah. saasaad u jaraysaa si yar oo isku siman insha Allah ayaad u